socotay 60 sano kadib dawladda Turkiga ayaa soo saartay markii ugu horeeyay gaarigeeda casriga ah ee lagu magacaabo Togo. Maanta muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa daawada qisada gaariga cusub ee dawladda Turkiga ee lagu magacaabo Togo. Halkani waa dhigaal. Haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto muuqaalada xiga. Hore waxaa loo yiri riyo kasta oo lagu riyoodo mar bay rumowdaa. Wadanka Turkiga wuxuu ku riyoonayay 60 sano inuu sameeyo gaari nooca raaxada ah. dabayaaqadii sanadkii 2019 bishii December ayuu Turkigu ku dhawaaqay inay rumowday riyadiisii. Xaflad uu qayb ka ahaa madaxweyne Erdogan ayaa lagu soo bandhigay gaariga Togo ee ku shaqeeya korontada. Gaarigan casriga ah waxaa ku farayareystay injineero u dhashay dalka Turkiga. Waxaa la rajeynayaa inuu muddo 3 sano ah ku soo galo suuqyada caalamka. Turkiga ayaa sheegay inuu sanad kasta soo saari doono 175,000 oo gaarigan cusub ah. ku dhawaad 4,300 oo qof ayaa ka shaqeyn doonta warshada gaarigan lagu farsamayn doono. Sanadkii 1961 ayuu Turkigu isku dayay markii ugu horeysay inuu sameeyo gaarigii ugu horeeyay ee dalkaasi leeyahay. Magaciisa ayaa wuxuu ahaa Devriam. Kaliya xilligaas wuxuu sameeyay 4 gaari oo noocaan ah. Mar kale sanadku markuu ahaa 1966 ayuu sameeyay injineer u dhashay Turkiga gaarigiisii xigay ee la oran jiray Anadolu asagoo adeegsanaya warshada shirkadda Outsan. 1968 ayuu gaarigan Anadolu helay suuq helay ka gadaal markuu soo jiitay dadka qayb galayay bandhiga gawaarida ee magaalada London. Isla shirkadda Outsan ayaa isla waqtigaas sameysay 93,000 oo baabuurta nooca Anadolu ah. laakiin sameynta gaarigan ayaa gabi ahaanba joogsatay sanadkii markuu ahaa 1984. ilaa hadda Turkigu wuxuu ku riyoonayay inuu mar kale sameeyo gaari oo uu leeyahay milki ahaan. in ka badan 100 injineer oo u dhashay wadanka Turkiga ayaa ka qayb qaatay farsamada gaariga cusub ee Togo. Madaxweyne Erdogan ayaa damacsan wadankiisa inuu ka mid noqdo wadamada ugu waaweyn ee wax sameeya. gaarigan cusub waxaa suuqyada laga heli doonaa 2020. Erdogan ayaa yiri maanta waxaan marqaati u nahay taariikh weyn iyo dhaboobidda riyadii socotay 60 sano kadib. asagoo sii raaciyay waxaan ku qoray magacayga inaan ka mid noqdo dadka ugu horeeya ee iibsan doona gaariga cusub. warshada lagu farsamayn doona gaarigan ayaa laga dhagax dhigay gobolka Borso ee ku yaala galbeedka Turkiga. Turkiga ayaa 60meeyadii isku dayay inuu sameeyo gaari laakiin fashil ku yimid madaxa Turkidu may sii wadin. arrinta xiisaha leh waxay tahay 30,000 oo gaari oo la soo sameyn doono xilligaas dhammaantood waa la sii gatay. samaynta gaarigan ayaa ku beegantay saacadu markay ahayd 8:53 daqiiqo taas oo la micno ah xilligii muslimiintu ay furteen magaalada Istanbul sanadkii 1453 miilaadiyada. sidoo kale muuqaalkii ugu horeeyay ee gaarigan laga duuba waxaa la faafiyay saacadu markay ahayd 1 saac iyo 23 daqiiqo oo u dhiganta waqtigii la aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga 1923. wadanka Turkiga ayaa ka mid noqday wadamada ugu horeeya ee wax soo saara dunida. waana wadanka muslimka ee ugu horeeya ee warshadaha caalamiga leh. sidoo kale Turkigu wuxuu sameeyay gantaalo iyo gawaarida dagaalka kuwada gaashaaman, sidoo kale diyaarado casri ah iyo wax soo saar dhan kasta leh. Turkiga ayaa wuxuu galay horumar ballaaran ka gadaal markii uu la wareegay madaxweyne Erdogan, kaas oo loo arko in uu yahay hogaamiyaha horumarka wadanka Turkiga.